السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا لو حين دوينا فيديو جيني halkii baan kasii duubaynaa markii hore hadii aan fahmin imika internet baan haystaa I think imika aan si fiican isla fahmi doono sida loo sameeyo waxa ii soo kici doona systemka marka inta systemka ii soo kaxay waxaan idin sheegayaa imika in aynu soo darsan doono installation keeni oo fiidiyoodii hore maan haysanin internet. Okay, system keeni hadda uu ii soo kacay database kaliya ayaa loo diray. So fiidiyada hore hadda daawatay muu lahayn Windows ku muu lahayn wuxuu haystay iconkaas oo Windows ku haystay wuxuu arkay kacas maadaama ku hore ku dhisay uu diiday marka cusub saad soo darsto waxa dooranaysa xigay waxa dooranaysa icon adoo Windows ka jooga then contact easy marka waa inuu easy yahay sida icon that's it. marka saas sameeyso waxa sameynaysaa in aad safrayso systemka debugna aad ku bedesho release debug markaad ku bedesho release waxaad u baahan tahay inaad run garayso system sidii markii hore aynu soo sameynay waxa ku soo bixi doonta waraaq yar ba ku soo bixi doonta continue debugging aynu ka dooran doonaa marka waraaqda inoo soo baxdo sababtoo ah wax kulay ma ka tagaa debuggingka marka gudasanay inuu ka tago waxay rabnaa inuu debugging uu socdo release configuration ahaan aynu joogno. Okay, system keena waa kan hadda inoo shaqeynayaa su'aad ba inoo jirta soo naskana dhigin su'aad wali kare iskiin uu shaqeynayaa crash ma haysan. Okay, waxaan u baahanay markaas inaynu extensionki aynu ku soo darsano marka internet baan haystaa imika extensionki I think oo ku soo darsan karnaa installer وكان وحققر Microsoft Visual Studio Installer Project 2022. So أنا already install كريسين هاي أنا مستخدمة دب وشوية مثلا أدبو وين install تراه تبنا وصفحة تبنا add Visual Studio تيسو دبو شكل simple like that إنت سكلي كليه. مركز هذا بعد خصوصا شبطه خصوصا شبطه solution explorer ayaa tigisa solution explorer marka tagto waxaynu sameynaa sababkii ma laba dib celinayna xagga solution explorer ku qoran tahay barjikoona ku qoran ay tigisa marka aad tagto add badanaysa add new project waxaan ku tusnaa projectkii aynu hadda soo doon galaysan Visual Studio sababka aha isaga dooranaysa marka doorato waa inay halkan ku tahay all halkan ku tahay all platform halkan ku tahay all tapes hadii kale wuxuu kaaga dhigayaa inaan noqon sabab marka sabab all those things in accept correct. Next baa ornaysa sidabkeena marka waxa siinaysa magac waxaan u bixinayaa tusaalahaan oo kale s contact s oo semester s8 7 semester 8 7 and same folder key ay iigu jireen application kale ayuu ii dhex dhigayaa continue baan dhahay markaa listening. So file system lagu sameeyay sababka ah waxa ugu sareeya file system on target machine waxay haystaa 3 folder. folder koowaad waxa weeye application folder ka labaad waxa weeye user desktop folder ka saddexaadna waa user programming ka ugu horeeya marka waxa lagu dhex dhisaa oo lagu sameeyaa maxay application waxa doonaysaa add dadka project output marka tiraahdo ma configuration kiisa wax ka dhigaysaa maxay active configuration marka active ka dhigto automatically uu kugu sameeyaa sidabkaaga marka waxa sameynaysaa maxay in tiraahdo create shortcut
create shortcut marka tirahdo magac shortcut kaaga u bixi waxaan u bixinaynaa imika S8 set up copy si aan marka labaadan sameynayna aan magacaas u S8 setup S8 setup waxaynu ku dareynaa hadaba icon xagga dhiig soo jeed waxaynu ku dareynaa maxay S8 waxaynu ku dareynaa iconkaas aynu ku dareynaa markaas wait a minute waxaynu u baahanay Stephen soo ilaaway inay delete garayno shortcut markaynu joogno aynu soo samaysano project aynu kusoo dirsano shortcutka ah waxaynu u baahanahay inaynu nahan R5 xagama tigisa R5 la oranaysa waxaa lagu aad kusoo dirsanaysaa faylkii isooda ahaa applicationkeena aad rabtay inuu hadhowto uu u haysto as a picture so easily waan kusoo dirsaday hadda waxaan u baahanahay markaas inaan kan shortcut ka sameeyo magaciisa markaas create shortcut name-ka waxaad ka dhigtaa sabab waxaad ii soo gelisaa iconkii aynu applicationka gashanay ayuun baynu kana soo gashanaynaa waa same system baynu dhisaynaa same project okay baad dhahaysaa shortcutkeeni koowaad marka hadda waa laynoo sameeyey waxaad dhahaysaa cut marka dhahdo desktopka tegaysaa desktopka marka dhahdo waxaad oranaysaa base dib haddana waxaad ugu noqosaa applicationkaagii waxaad oranaysaa create new shortcutka magacana waxaad u bixisaa magaceeda markii hore aadkii hore u bixisay HA u bixiyay marka كلية مجالسة شمال شرطة لغات بقى أيان سمستر شرطة لغات كنسلكي هراقل وإنا كسو درس الحي ايكون إنا كسو درس ايكون دين وحنا بروز دين وحن تبيع فايلكي كي يو بتشري ايكون ليسا هذا سوى قادنايا وحنا continue shortcutkeena kala picture-ka wata isagana waxaan ku sameynayaa cut waxaan dhigayaa xigay user program menu waxaan oranaya base so waxa ii samaysan hadda waxa ii samaysan shortcutkii sadafkiisii oo waxaa lagu shubi doonaa desktopka midna geli doonaa program kan desktopka geli doonaa waa ka la isticmaali doono desktopka geli doonaa kan kalena waa ka geli doona sida ee faylka lagu save gareyn doono markaas lagu bixiyo user program menu iyo desktop menu so waxaan tegaynaa explorerkeena hadda waxay noo samaysan sababkii waxaynu haysanaa laba projectka koowaad waa kii hore aynu dhisaynay in hooyada beeli karno ka labaad waa maxay ka labaadna waa kii aynu soo samaysanay sababta detect dependencies u haystaa waxa weeyaan maxay faylashii ku jiray kii hore oo dhan buu haystaa amba sawirkii ha ahaado amba shortcutkii ha ahaado so let's gonna go back a formka aynu ku noqono formka windows iconka isla kanoo kale aynu kasoo dhigno markii hore casaan buu inoo ahaa projectkii hore casaankaas projectka ku jiro haystay marka uu diidanaa imika waxaa filayaa inuu yeeli doono intaa markaynu sameyno kadib waxaynu u baahanahay maxay inaynu tagno solution explorerka cidda systemka samaysa ayaad magaceeda ku qoraysaa magacaygii baan iska qoranayaa nimcafidaar manufacturerkiina waxaan ka dhigayaa nimcafidaar
ama company sameeyay. So ama company haysto marka waxaan ka dhiganaa in this case magacay oo iska just example in the class. So waxaan rabnaa maxay projectka bil garay edis sababkii aynu sameeyno edis sababka markuu ku dhameeyo ku dhiso halka start ayaa noqonaysa green markaas ay macnaheedu tahay uu dhameeyay hadda green bay noqotay uu dhameeyay sababkeeni markaa hadda way noo diyaar waxaan u baahanay inaynu open folder in file explorer file-ka uu noogu shubay inaynu aadno file-ka uu noogu shubay markaa waxa weeyaan file desktop yaala oo la project semester 8 sababkeeni wuxuu bixiyay semester 8 sabab wuxuu haystaa folder la release double click release labadii folder ee sheegay waa kan clear yihiin kan yar waa kii desktop loogu talagalay kaasna waa kii marka lagu save gareynayo automatically qaybta u tagaysaa cdl marka waxaan leeyahay sababkiiba bilaamaya waxaan leeyahay everyone waxaan leeyahay next waxaan leeyahay ma u baahan tahay in aad continue ku samayso waayo publisher-kan link lagama hayo mina soo gelin link we doesn't need a link it's just an example. Please use Windows Update to check any critical updates to the .NET framework. .NET framework application la lagu dhiso ee soo la socota Windows Update kala socota. Okay. Application kii ku dhisnay machine ku dhisnay buu isticmaalna sababkeena marka simster ay bayna haddii aan double click naahno systemkeeni way noo shaqeeyaa waxaynu ugu jeeso caadi shooda so isoo koobiye emailkan kale isoo koobiye kan waa generation ku jirta koobi so halkan waxaynu ku daraynaa inan waxaa tiraahdaa ali عمر حرفي ايميل كيسنا حكا لكتا علي nickgeneration.com تليفون نمبر كيسو حواليان 435-99 then insert data saver successfully marka uu noogu daray xirsi hadeen doon rooda inaan isku tuuro oo emailkeedu for example qodan yahay following tuurana hadeen doon su'aal inaan number ku darno waxaan update dabeedna waxaan rabnaa su'aal Cabdilaahi magaceeda noo soo qaad waxaan copy magaceeda soo copy-yeysana ama magaca qofka systemka isticmaalaya حكم كلنا والسعاد إيميل كي وسعاد هاي سكسي أحاله وايو هم مربع صدق دودا أبديت كلا ولا أبديت كرينيا مرة كريدو إما أبديت كرينك إذا نوحي سيدتها 4244577 تلفون نمبر قاسي هاي ستا insert باندا هاي قام قوضا insert باندا هاي نركا إلتون أنا هي سعاد عبد الله روجي ذيتو داخلها كني وجدت إيه بديت كري أوكي ولا بديت كري سعاد عبد الله يوزن قاعدة وجدت and I think أنت عصوا حوالي إنه هو مهم سن هذا دروس إنه هذا الدروس استمتعت وكان كنترول بانل أي بتيجي كنترول بانل كاي مخاطر وصار مثلا on install واحنا جايين نسأل اس8 welcome ده حالنا سامحي عندي مستوى ده نقطة وراي waxaan
filayaa in inahaas ay inugu filan yihiin haddaan doonano mar labaad inaynu soo maxay haytay ku shubanana waxaan dib ugu noqonaynaa faylkeenii waxaan dib ugu noqonaynaa release waxaana mar labaad system markaa la inoo dhisayaa waxaa dooranaysa everyone daakhlanaysa next daakhlanaysa next daakhlanaysa yes marka waa inoogu shubay sababkii iskatoobku inoo yaalaa markan haddana sidii kii hore oo kale iska xig windowgana I hope in intaas in ku filan tahay sida database-ka loogu xiro application-kana fidada kan ku filan ka dhigi doonaa stay tuned